Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka caalamka oo aad si toos ah kala socotaan Suldaanka TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi. Waxaana warka idiin sheegaya anigoo ah Maslax Abuukar Xaaji. Qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho. Shaqaalaha shirkadda DP World oo sababo kala duwan bilaabay inay uga baxaan dekedaha Berbera iyo Boosaaso. Kenya oo xog dheeraad ah ka bixisay hub iyo dadkii waday oo lagu qabtay Mandera. Wararkii ugu dambeeyay weerarkii shalay lagu qaaday dad ku cibaadeysanayay masjid ku yaala New Zealand. Hay-adda Somali Barawe Foundation oo xarun caafimaad ka hirgelisay magaalada Barawe. iyo su-aasheena maanta oo aan idiin soo gudbin doono anagoona dib u eegi doona su-aashii shalay aan idiin soo gudbinay iyo daawadayaasha fikradooda saliimka ka soo dhiibtay. warkii oo fidsan. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa waxa uu ka degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Waxaana madaxweynaha halkaasi ku soo dhaweeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxaana si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka Aadan Cadde. wafdiga madaxweyne Geele ayaa ku jira xildhibaano, wasiiro, ganacsato, saraakiil ciidan, xubno ka tirsan madaxtooyada Jabuuti iyo fanaaniin muddo aanan imaanin Soomaaliya. fanaaniinta soo gaaray magaalada Muqdisho waxaa ka mid ah Xasan Aadan Samatar oo sheegay in 30 sano uusan imaan Muqdisho, waxaana waqtigiisa ugu badnaa uu ku sugnaa dalka Jabuuti. madaxweyne Geele waxa uu qorshihiisu yahay inuu xariga ka jaro safaaradda Jabuuti ee magaalada Muqdisho oo noqonaysa safaaradda labaad ee ugu weyn ee ka dhisan magaalada Muqdisho. waxaa sidoo kale uu dhagax dhigi doonaa mashaariic dowladda Jabuuti ay ka hirgelinayso Soomaaliya. sidoo kale waxaa qorshaha uu u imaaday magaalada Muqdisho ka mid ah inuu u tago ciidamadiisa ku sugan gobolka Hiiraan ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM. shaqaalaha shirkadda DP World ayaa la shaaciyay in ay siyaabo kala duwan uga baxayaan dekedaha Boosaaso iyo Berbera. shaqaalaha shirkadda DP World ee ku sugan Soomaaliya, gaar ahaan dekedaha Berbera iyo Boosaaso, ayaa waxaa soo wajahday cabsi xoogan 44 maalin kadib dilkii magaalada Boosaaso loogu geystay madaxii shirkadda DP World ee magaalada Boosaaso. mas-uuliyiin ka tirsan shirkadda DP World oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shaqaalaha cabsi aad u xoogan ay soo wajahday, isla markaana siyaabo kala duwan ay uga baxayaan halkaasi. madaxa shirkadda DP World Sultaan Axmed bin Suleymaan oo la hadlay wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegay in shaqaalaha shirkadda ay bilaabeen inay ka baxaan Soomaaliya kadib markii cabsi ay soo wajahday, sida uu hadalka u dhigay. wuxuu sheegay in shaqaalaha ajaanibta ay soo wajahday cabsi xoogan kadib dilkii madaxii shirkadda DP World ee Boosaaso, waxaana uu cadeeyay in taasi ay sababtay in shaqaalaha qaar ay ka baxaan Soomaaliya. Mr. Sultan ayaa sheegay in shaqaalaha qaar loo hanjabay, taasi oo keentay inay ka baxaan magaalooyinka Berbera iyo Boosaaso, waxaana uu sheegay in taasi ay caqabad ku noqon karto shaqada ay ka wadaan Soomaaliya. waxaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari lagu dilay madaxii shirkadda P&O oo hoos tagta shirkadda DP World una qaabilsanaa dekedda magaalada Boosaaso oo lagu magacaabi jiray Paul Faramosa bishii February, taasi oo walwal badan ku abuurtay shaqaalaha DP World ee ka shaqeeya Soomaaliya. dilka ayaa ka dhacay suuqa kalluunka ee magaalada Boosaaso ee loo yaqaano Negfish oo aan sidaa uga fogeyn dekedda. waxaa dilkaasi sheegtay Al-Shabaab oo sheegay inay ka jawaabayeen cabasho uga timid shaqaalaha dekedda Boosaaso. hay-adda Somali Barawe Foundation ayaa waxa ay ka hirgelisay magaalada Barawe xarun caafimaad oo ay dumarka ku umulaan, iyadoona suldaanka guud ee beesha Sangamaas uu halkaasi ka qaybiyay mucaawino kala duwan.
hay-adda Somali Barawe Foundation oo ah hay-ad samafal oo bulshada u shaqeysa ayaa waxaa magaalada Barawe ay ka qaybisay mucaawino ay ugu talagashay dadka danyarta ah ee halkaasi ku nool. Mucaawinadan oo isugu jirtay dawooyin, marooyinka laga galo kaneecada iyo agabyo kale ayaa waxaa gacantiisa ku qaybiyay suldaanka guud ee beesha Shangamaas, Suldaan Xeydar, Suldaan Suufi, Suldaan Munye oo deeqdan gaarsiiyay dadka deegaanka, sheegayna in uu si weyn u garab taagan yahay walaalaha Somali Barawe Foundation. Sidoo kale hay-adda Somali Barawe Foundation ayaa waxaa magaalada Barawe ay ka hirgeliyeen xarun caafimaad oo ay dumarka ku umulaan, taasi oo baahi weyn ay u qabeen bulshada deegaanka. Suldaanka guud ee beesha Shangamaas, Suldaan Xeydar, Suldaan Suufi, Suldaan Munye ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta iyo ganacsatada deegaanka in ay ku daydaan Somali Barawe Foundation islamarkaana waxqabad ay la yimaadaan. Sidoo kale halkaasi ayaa waxaa ku sugnaa Cabdifataax Maxamed Nuur Sandheere oo ah gudoomiyaha magaalada Barawe, nabadoonka guud ee beesha Shangamaas, nabadoon Cabdiqaadir Cabdow Xaaji, nabadoon Cabdiraxmaan Guulwade iyo nabadoon Shufeeri. Dadka madasha goobjooga ka ahaa ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa wakiilka Somali Barawe Foundation ee Soomaaliya, Sheekh Maxamed Kulow Sayid, waxaana si wadajir ah dhammaanba dadkaasi ay u soo dhaweeyeen waxqabadka hay-adda samafal ee Somali Barawe Foundation oo ah hay-ad dadka u gargaarta. Ugu dambeyn, shacabka ayaa loogu baaqay inay ka faa'iideystaan adeegyada kala duwan ee halkaasi ay ka hirgelisay hay-adda Somali Barawe Foundation. Dowladda Kenya waxaa xog dheeraad ah ay ka bixisay hub iyo rag ka tirsan Al-Shabaab oo gacanta ay ku dhigtay. Dowladda Kenya ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay hub iyo dadkii watay oo dhowaan gacanta u soo galay dowladda Kenya, kuwaasi oo lagu qabtay magaalada Mandera. Maxamed Biriq oo ah isku duwaha amniga ee Mandera oo saxaafadda la hadlayay ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay qabteen 4 ruux oo la dagaalamay ciidamada Kenya xilli ay roonda ku jireen. Maxamed Biriq ayaa sheegay in 4 ruux oo Soomaali ah lagu qabtay iyaga oo wada qoryo aan sharci ahayn iyo rasaas badan, isagoo tilmaamay in hadda lagu hayo xabsi ku yaala Mandera. Dadka shacabka ah ayuu sheegay in ragga hubeysan ay xogtooda soo gudbiyeen, sidaana ay ku qabteen ciidamada amniga xilli ay ku raad joogeen xubnahaasi la tuhunsan yahay in Al-Shabaab ay ka tirsan yihiin. Ciidamada markii ay jidka u galeen ayay 4 qof rasaas bilaabeen, ciidamada ayaana gacanta ku dhigay xabsi ayay haatan ku jiraan, maxkamad ayaana la soo taagi doonaa, ayuu yiri Maxamed Biriq. Maxamed Biriq ayaa ugu dambeyn sheegay in hubkan loo maleynayo in loo waday Al-Shabaab ama dadka burcadda ah ee xoolaha ka dhaca dadka reer miyiga ah ee ku sugan xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Wuxuu sidoo kale sheegay in mid ka mid ah 4 qof uu dhaawac soo gaaray, laguna hayo isbitaal deegaanka Ceelwaaq ku yaala. Wuxuu sidoo kale intaasi raaciyay in ciidamada ammaanka ee halkaasi ku sugan mar walba heegan ay ku jiraan. Faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxaysaa khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay masjid shalay lagu weeraray dalka New Zealand. Dadkii ka badbaaday weerarkii arxandarada ahaa ee lagu qaaday shalay 2 masjid oo ku yaala dalka New Zealand ayaa waxaa sharaxaad ay ka bixiyeen sidii ay wax u dhaceen. Mid ka mid ah dadka ka badbaaday weerarka oo dharkiisa dhiig badan uu ka buuxay ayaa sheegay inuu arkay nin weerarka soo qaaday oo dadka xabad si toos ah ugu tooganaya. Waxa uu sheegay in toogashada ay socotay qiyaastii 20 daqiiqo. Waxaa la rumaysan yahay in 49 qof ay ku dhinteen halkaasi, iyada oo dhaawaca uu gaarayo ilaa 20 ruux. Waxaan ku fakarayay in rasaasta ay mar uun ka dhammaato ninkaasi. Waxaan sameeyay waxay ahayd inaan sugo oo duceysto, Ilaahayow ninkan ay rasaasta ka dhamaata ayaan ku duceysanayay, ayuu yiri ninkaasi. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri waxa uu yimid halkan dhinaca ragga oo dadkii ayuu toogtay, kadibna waxa uu u gudbay qaybta dumarka, waxaana maqlayay oohinta dumarka. Walaalkay halkaas ayuu joogay, laakiin weli ma aqaan in uu bad qabo iyo in kale. Qofna kama uusan tagin, ayuu hadalkiisa sii raaciyay. Nin kale oo ka mid ah dadka ka badbaaday weerarka ayaa sheegay in dadka ay daaqadaha jabiyeen si ay uga baxaan. Wuxuu bilaabay inuu toogto qof kasta oo
uu u maleeyay in uu weli nool yahay waa uu sii tooganayay si uu u dhammaystiro. Ma uusan dooneyn in qof nool halkaasi uga tago. rasaas badan ayaa halkaasi sidoo kale laga helay. Fariid Axmed oo isna ah nin naafo ah balse ka badbaaday weerarka ayaa sheegay in xaaskiisa ay ku jirtay qaybta dumarka welina uusan xog dhab ah ka haynin xaaladeeda dhabta ah maadaama ciidamada ammaanka ay wadaan baadigoob ku aadan ninkaasi. Waxaan arkay markii uu soo socday barxadda masjidka ee uu qolkeena kusoo wajahnaa. Wuxuu arkay qof kale oo isna masaajidka u soo socday. Dhabarka ayuu ka toogtay wuuna dilay. Waxaa dhulka daadsanaa rasaasta, boqolaal rasaas ah ayuuna ninkaasi adeegsaday. Waxa ay ugu baaqeen dowladda New Zealand in arrimaha noocan oo kale ay wax ka qabato, iyadoona ilaa iyo haatan dad badan loo qabtay arrimaha la xiriira weerarkaasi. Akhyaartana daawanaysa intaasna waxa inooga idil baahinteena warka caalamka oo aad si toos ah kala socoteen Suldaanka TV xaruntiisa dhexe ee Nairobi. Waxaa warka idiin sheegayay anigoo ah Maslax Abuukar Xaaji. Tani inteenu ku kulmi doono warkan kan xiga waxaan idinka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.